waxaan ka bilaabaynaa maanta how to draw the structure ama how to write the structure of alkynes. sidee loo qoraa structure-ka markii name lagu siiyo structure-ka alkyneska. ashirkii hore wuxuu ahaa structure-ka lagu siinaa name-ka laga rabaa, magaca laga rabay. hadda magaciisa lagu siinaa structure-ka laga rabaa. marka waxaan u shaqeynaynaa opposite ama cagsi. okay, how to draw or write the structure of alkynes. Example number 1. Draw the structure of 4-methyl 2-pentyne. sawira lagu yiri ama qor structure-kaas magacaas iska leh. step-ka koowaad waxaad ka bilaabaysaa, waxaad soo qaadanaysaa magaca ugu dambeeya, magaca lagu siiyey magaca ugu dambeeya ayaad soo qaadanaysaa. waa pentyne. pentyne maxay tahay marka? waa parent chain name, silsilada kuugu dheer, silsiladii uu lahaa structure-kaas ee ugu dheerayd magaca ay lahayd waa pentyne. benta 5 carbon atom ayay ka kooban tahay. 5tii carbon atom ayaa qoraysaa 1 2 3 4 5. step-ka labaad numbera ku dul qoraysaa kaarboonada. kaarboonada aad dhigtay numbari adigoo ka bilaabaya dhanka aad rabtid, dhinaca aad rabtid. haddaan rab intaan ka bilaabaa 1 2 3 4 5. haddaan doonno intaan ka bilaabaa 1 2 3 4 5. okay, aan inta ka bilaabno 1 2 3 4 5. waa step-ka labaad. step-ka saddexaad tiradan ka horeysa pentyne-ka ayaad soo qaadanaysaa, halna waa ku darsanaysaa. hadda labaa meesha ku taalla, laba hal ku dar 3 waaye. marka triple bond-kaagu wuxuu u dhexeeyaa labadii awal meesha kuugu qornayd iyo labadii halka aad ku darto 3 noqotay. 3 iyo 2 dhexdood ayaa dhigaysaa triple bond. 2 iyo 3 waatan triple bond aan dhigno. okaas halkan waxaa kuugu qoran 4kan side chain-kan ayaa iskale methyl side chain waaye ama waa baranj. kaarboonka afraad wuxuu ku leeyahay marka ku dhaji CH3 sababtoo ah methyl CH3 waaye. kaarboonka afraad tag CH3 ama kor ama hoos meeshaa doonto oga dheji. maadaama kor number ay ugu dhigan tahay hoosaan oga dhejinaynaa CH3. hadda waxaan buuxinaynaa hydrogenada. kaarboon walba waxaa laga rabaa inuu yeesho maximum 4 bounds ama 4 dabar ama 4 xariiq. haddii hal xariiq ay ka maqan tahay hal hydrogen aa ku daraysaa. 2 hadday ka maqan tahay 2 hydrogen. haddii 3 hydrogen ay ka dhiman tahay, 3 xariiqood ay ka dhiman tahayna 3 hydrogen ayaa ku daraysaa. macnaha halkii bound waxaa u taagan 1 hydrogen atom. okay, intaan ka bilaawno hal xariiq ayuu leeyahay ama 1 bound. geesna wuu jiraa single bound uu leeyahay. waxaa ka dhiman 3 bound ama 3 xariiq. booskeeda waxaa gelaya 3 hydrogen atom. marka waxaan dhahaynaa kan waa CH3. kaarboonkaanaan tegaynaa, waa xisaabinaynaa boundiska ku wareegsan. midkan wuxuu la wadaagaa kaarboonkan. marka kanna waa loo xisaabinayaa, kanna waa loo xisaabinaya. kan aan u xisaabiyo 1 2 3 4. afartiisii dabar ama afartiisii bound waa u dhan tahay. hydrogen kale lagagama baahna inaad ku dartid. kan tag 1 2 3 4. asagana lagagama baahna inaad wax hydrogen ku dartid. meeshaas waxaa nooga soo baxay concept. maxay tahay? triple bond-ka labada kaarboono u dhaxeeyo waxa hydrogen ku darin weligaa. triple bond-ka labada kaarboon u dhaxeeyo weligaa hydrogen ku darin sababtoo ah boundiskooda waa complete. 1 2 3 4 1 2 3 4. kanaan tagno 1 2 3 dabar uu leeyahay ama 3 bounds. maxaa ka dhiman si 4 loo helo? halka hal hydrogen ka dhiman.
tagaynaa hal bound uu leeyahay afaraa laga rabay 3 bound u dhiman 3 hydrogen ku dar wakaas structure-kii noo kaga baahnaa oo ahaa 4 methyl 2 pentyne waa kan waan qornay waxaa noogu xigi doona example-ka labaad oo aan ku daba xijinayno example number 2 draw the structure of 2 methyl 3 heptine sida example-kii hore aan kuugu sheegay waxaan soo qaadanaynaa magaca ugu dambeeya magaca nala siiyey heptine ayaa ugu dambaysa heptine imise carbon ay ka kooban tahay tableka haddaad soo barato waa taqaanaa methane ilaa iyo decane waa 7 carbon atom 7 carbon atom ayaan qoraynaa 1 2 3 4 5 6 7 7 carbon atom okay waa nambarinaynaa nambarka meeshaan doonaan ka bilaabaynaa sida hadaa aan kuu sheegay example-ka hore aan kuugu sheegay hadaa intaan ka bilaabna intaan ka bilaabaynaa si aan kuugu muujiyo inaad dhankaa rabto ka bilaabi kartid akaas haddaan rabto intaan ka bilaabaysaa haddaan doon intaan ka bilaabaysaa nambarkan ka horeeya heptine-ka sidaan kuu sheegay hal ku darso 3 waaye hal ku dar 4 3 iyo 4 dhexdooda dhig triple bound yaa ii sheegay inaan triple bound aan dhigayo waxaa ii sheegay yne sidaan kuu sheegay waxay kuu tilmaamaysaa triple bound ene waxay kuu tilmaamaya double bound ane waxay kuu tilmaamaya single bound marka hadda yne haysanaa triple bound dhig 3 iyo 4 dhexdood inta kale waxay noo noqonayaan marka single bound hadda hydrogenadii ayaan buuxinaynaa markii aan dhigno 2 methyl markaan ku dhajino kaarboonka labaad ku dhaji methyl CH3 kaarboonka labaad aaway kaarboonka labaad waa kan kor aan uga dhajina markaan CH3 kaarboonkii labaad hadda hydrogenadaan buuxino sida hadda aan kuu soo sheegay kaarboon walba waxaa laga rabaa 4 bounds ama 4 dabar ama 4 xariiq haddii ay hal ka maqan yahay hydrogen waa ugu bedelay laba hadday ka maqan tahay 2 hydrogen 3 hadday ka maqan tahayna 3 hydrogen ayaa ugu bedelaysaa ayaa ku daraysaa kan wuxuu leeyahay single bound ama hal xariiq 3 hydrogena ka dhiman si loo helo 4 bounds kan 1 2 3 ayuu leeyahay halaa ka dhiman hal hydrogen ayaa ugu bedelaysaa booskeeda ku dhajinaysaa kana kuu soo haray 1 2 3 4 waxa hydrogena ma ku daraysid hadday waxaan ku dhahay labada kaarboon ee triple bound u dhaxeeyo hydrogena ku dhajin okay kan marka waa kaarboonna looma yeelaayo kana looma yeelaayo sababtoo ah kan aan tirina boundiskiisa 1 2 3 4 waa complete kan afraadna aan tirino 1 2 3 4 waa dhammaystiraya ka shanaad aan tagno 2 bound ayuu labada dhinac ku leeyahay 4 laga rabaa meeqa ka dhiman 2 ka dhiman 2 hydrogen ugu daraysaa kan wuxuu yeelanayaa CH2 okay kan tag ka lixaad 2 dabar uu leeyahay 2 bound asagana 2 kala ka dhiman 2 hydrogen ku dhaji okay midka ugu dambeeyaan tagaynaa 7aad hal bound uu leeyahay 4 laga rabay meeqa ka dhiman 3 bound booskooda 3 hydrogen ugu bedel okay structure-keennii naloo diray ee ahaa draw 2 methyl 3 heptine
waa kan structure-kii noo kaga baahnaa intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa cashirkeennii maanta fadlan haddii uu ka anfacay cashirkan saaxiibadaa u sii sheergaree subscribe-kana ha ka iloobin subscribe-ka wax lacaga kuguma fadhiyo hadduu ku anfacay ii saar adigoo aad u mahadsan like-tana saar saaxiibadaana u sii sheergaree السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.